musuqmaasuqa dawladda aawanka shacabkan kale musuqmaasuq ma ka jaro shacabka Soomaaliyeed inay maran habaabiyaan ma aha musuqmaasuq dawladdiya musuqmaasuq ku shaqaysa musuqmaasuqa horta markay timaadaba waxa sameeya dad kamida nidaamka Soomaaliya waliba iyo kumid ah wadamada adduunka la ka tilmaamo in kaalmaha hore ka jarta musuqmaasuqiyo wal isdawmariyowka dawladda u lahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba ayaan dhagaagdaysi armogasay kurgal lahayti laakiin siyaabo shirkadiisan yeelan ka fal naga hay iyadoo dadka qaar wariyaan in musuqmaasuqiin wal qabto dawladda dhamanka hayna dad qaar leeyin dad gaar ay ka taageeraysto fadayta meelida dad qaarna iyo sheegan dawladda waliba iyo qorshe istimaamada ku go'antay in wal qabto armogasay haddaba shacabka ma ay fikirsho ka eedan in dawladda Soomaaliya iyo fadaasa in wal qabto arimaha musuqmaasuqa shacabka Muqdisho iyo la warsi kala weelni yoon aragtiyo ka dhiibdan wana ka dhiibdan siyaabo shirkadiisan Soomaali qaasatan gobolka Banaadir runtii Soomaali wada deganta musuqmaasuq hobleer ana nafteeda dadka ku jeeda dadkana ku jeeda yaab musuqmaasuqaas qaybka dadka oo meebwa wadankan lagu haysto ku mid yihiin marka hadii dawladda Soomaaliya ee runku eta inay musuqmaasuq la dagaalanta lambar 1 way sameeyaan horta dadka oo digli marfleega gobolka Banaadir meebwa degan oo meebwa geeg la erkor dadka ganacsatayaalka ku weyn iyo een oo haddana ashuurtiyo la ku qaadahay meebwa dadkii gobolka Banaadir dhaladii ya ku mid yihiin dawladda doorkaas shaqo kaga baahan shaqo waxa kaga baahan Ali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ku dhawaaqay Ali Jeeyta xilkan ka qaaday ninkii halgankii shabaab iyo deegaanadiisa xiiraan xoreynay shacabka Soomaaliyeed inay maran habaabiyaan ma aha musuqmaasuq dawladdiya musuqmaasuq ku shaqaysa waayo qabuuraha la qoday maxay ahayn ee dhulkii la booway yaa sabooway yaa samax loo maxkamadeey shaqaalihii dawladda ku soo haray agaasimiyaalka xilka laga qaaday shacab ahaan iyo ka dhaqan ahaan in maxkamadii wada tagno iyo shacab Soomaaliyeed maxkamadda si dastuuri ah loo maxkamadeeyo agaasimii wuxuu dhaqaale qabo wuxuu hanti ka boobay dalka laga cadeeyo maxkamad la geeyay ayaa ahayd in agaasimii xabsi la geliyo isla agaasimo kalena hor laga magacaabo aawi musuqii laga shaqeynayay marka magacayga waxa la yiraahdaa Khalid Geedi baa la yiraahdaa musuqmaasuqa horta markay timaadaba waxa sameeya dad kamida nidaamka oo aan ahayn markastaba dadka madaxda ah waxa wax looga qaban karaa dhowr dariiq baa looga qaban karaa kow in nidaamka laga daacad yahay nidaamka hadii laga daacad yahay waxa yimaada in maamul daadejinta hadii lagu wado in ay suurtagal tahay in uu yaraado dabagal badan lagu sameeyo hantida ummadana dib loo soo celiyo iyadoo la xisaabilayo maxaa baxaya iyo maxaa soo gelaya labadaba marka wax dhowr dariiqo kale looga qaban karo hadaan ku tilmaamo waxa kowka isla xisaabta dawladdu haday la xisaabtamo dadka u shaqeeya inta badan way soo qabalaysaa cidda musuqmaasuqaysa laba waxa kamid ah oo wax looga qaban karaa waxa oo labaad ah in dadku ay haystaan shaqaaluhu ay qaataan wax ku filan ay qofka hadduu $100 qaato uu arkayo dhowr $100 meeshii marasa wuu musuqmaasuq sameeyaa marka labada dariiq la qaado isla xisaabtan iyo in shaqaalaha la siiyo lacag ku filan oo on time iyo waqtigeeda ay ugu soo dhacdo marka intaas laga qaban karaa assalamu alaykum warahmatullahi ada guulada kiileta dawladda Soomaaliya sadabay aan ka dhabay doonta arinta keedan wal qowdo ku musuqmaasuqa iyo wal isdawmariyowka nagadi Mohamed Nuur Faransa Muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab kood nambarka xidig 1 eber 1 4 gees